xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa in kulankooda ay kaga doodaan ammaanka magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in kulan ay ku yeeshaan xarunta baarlamaanka ee magaalada Muqdisho. xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay lagu wargeliyay in uu jiro kulan baarlamaanka maanta Isniina isla markaana ajandaha kulanka uu yahay amniga Muqdisho. kulanka maanta ay yeelanayaan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay u hadlayaan amniga guud ee magaalada Muqdisho oo maalmihii dambe ay qalqal geliyeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada kuwaas oo sheegay inuu faraha ka baxay amniga guud ee magaalada Muqdisho. ka hadalka amniga Muqdisho ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wax uu imaanaya iyadoo muddooyinkii dambe Muqdisho ay ka dhacayeen qaraxyo dilal qorsheysan kuwaas oo ay geysanayaan Daacish iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. sidoo kale kulanka golaha shacabka ee amniga ku saabsan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo habeenkii Sabtida ahayd dhaawac adag uu ka soo gaaray xildhibaan Maxamed Mursal Barrow oo gaarigiisa lagu xiray waxyaabaha qarxa. war ka soo baxay madaxda maamul goboleedyada ayaa shaki geliyay amniga magaalada Muqdisho. sugidda amniga Muqdisho waxaa si rasmi ah loo hoosgeeyay ciidanka booliiska Soomaaliya.